lagu arkay abtigu sidoo soo sameeya abtigu muxuu aan ka noqonaya ma fahanti laakiin meesha maxaa yaalay runtu waxay ahayd in isagu markasta ay kufsan jiray oo 8 jirkayga ilaa 10 jiraan ka gaadhayay inuu kufsan jiray 8 jir ilaa 10 jir maxaa dhacay 10 jir markaan gaadhay 10 jir markaan gaadhay waxa dhacday in la yiraahdo caruurta cidna ma xalaaleyn karto hala joojiyo Hargeysa marka waxa dhacday in la igu sameeyo ninkii i kufsan jiray inuu yiraahdo aniga ayaa xalaaleynaya waa ninka la igu yiri abtiga ayaa la igu yiri isaga ku xalaaleynaya anigu amar aan bixin kara ma qasab familku haduu yiri way dhacaysaa wixii wax la sameynaya ma fahanti abtigii kufsan jiray ayaa intuu kacay haddana isku dayay inuu i xalaaleeyo waa la ii qabtay isaga la hordhigay waa la ciijiyay waa la xalaaleeyay markaas waqtigii waan soo dhaafiyay ha ahaato waqtigii la xalaaleeyay kharashka ayaa bixiyay isaga ayaa bixiyay kharashkii inta la xalaaleeyay aan jiifo amba bukaankaan ahay marka waa aniga bas iriiri ayaan dareemi jiray culays sababtoo ah dhibaato ku soo gaadhay ku soo wajahday oo reerkiina u sheegatay reerkiina ay garab ka siin waayeen waa dareemi kartaa marka waxa dhacday in la ii diido inaan hadli karin yani xaaladaas marka joogta lama warami karo balse waxa garan kara qof anigo kale nabarkayga oo kale qof loo geystay unba ogaan kara yani iga raali noqda saxaabay waan isbar qaban karin yani waan caburmaya markaan arko waxaasoo kale yani markaan xasuustaba waan caburmaya marka waxa dhacday in maxay ahayday kubsigii la geystay iyo xalaaleyska ninkii kubsan jiray inuu xalaaleeyo wixii oo dhan waan dul qaatay waan eegay gurigeennii خلاص waxaan bilaabay inaan meeshii aan ka fogaado gurigaas inaan ka fogaado sababtoo ah waalid ilaashanaya hadaan jirin inaan anigu waqtigaas naftayda ilaashado qasab ay tahay waan iska tagi jiray xaafadaasaan u shaqo tagi jiray xaafad kastoon tago waa la shaqaaleysan jiray waan shaqaysan jiray waa la soo qabtaa gurigeena marka la soo qabto waa la dilayaa waa la xidhxidhayaa xariginta la igu xidhxidho biyo la igu dul shubo ayaa la garaaci jiray waxaa soo dhan yani markaan baxsado sababtoo ah meel aan nabadaada lagu sugi karayn qof nabadaada ilaalin karayn mas'uuliyad waa family inta la yiri amba waa waalid waa abaha waa hooyada on intay ku dhaleen halkaa ka soo gaarsiiyeen haddana silic iyo balanbal kale inaad adiguna si aad lagugu sii abiyuuso lagu cadaadiyo silicii dhibaatadii in lagu geysto aad bay u culus tahay laakiin taas ayaa garan kara qof dhibaatadaas soo gaadhay ayaa dareemi kara sax waan ogahay idinka laftiina dareenkayga waad cabiran kartaan ayaan filaya waana rajeynaya marka waxa dhacday inaan gurigii markasta aan ka baxsado marka la isoo qabto la isoo helo ina yaro 10 jiraan ahay meel fogna tagi garanayn haddaan cararana meel fog ma tagayo meelahaasaan tagaya waa la isoo qabanaya waa la xidhxidhaya silsilad baa la igu xidhaya gacanta de koleyba jirkayga niima qaawin karo haddaan awaado waan na tusi lahaa gacmaha inta la iga xidhxidho ayaa inta biyo la igu shubo la iqaawiyo mur la iga dhigo ayaa shaabug layla dhici jiray shaabug ma fahanti wixii oo dhan
wixii dhibaato waqtigaas qof awood leh ma ahayn waayo qof 8 jir laga bilaabay kufsigii ilaa lagu waday 10 jir haddana tii waxa ka darnayd in isaga la aniga dalac la soo raac jiro isaga loo helin jiray haddaan baxo inaan naftayda badbaadiyana si aan ku badbaadiyo aanay jirin haddaan baxona inta la soo qabto la xirxiro la dilo la shaabugeeyo inta biyo la gursheeyo quraac qado xasho waxaan ku dhi ma garanayo yani san u sheego amba miisaanka u dhigo ma sheegi kari sababtoo ah idinka dareenkayga waad cabiran kartaan 100% dareenkayga waad cabiran kartaan exactly waan ogahay marka waxa dhacday sidii aniga ay igu socotay markaan baxsado la isoo kaxeeyo kollayba hal maalin waxaas dhan kuma dhacayaan laakiin waqti muddo waa la isoo qabtaa waan baxsadaa waa la isoo qabtaa waa la xidhaa waa la dilaa waa la isoo qabtaa waa la xidhaa waa la dilaa wixii oo dhan aniga wada asxaabi aad bishoortaydu ka xasan tahay aad iga raali noqda part 4 kaanu ku kulmi doonaa waanoo kulanti wacan oo dambe assalaamu calaykum